الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الكرام، جمع ميشان سويمد وحيدكم السلام يا سلامتا مسلمين إليهين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامتا كبعدي سيدان وذ أجنهي دل كينا ودل مسلم ليراهدو شعب كصوماليا دجال بقولكي وبقول ومسلم وحانا دنيا مسلم كوليت كدعين أيا وقتيادان كدعي مالمها لصور دافع كدعي وحلقوا أجانجرا وحماشان كدعي فالحمد أهي نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام إن قفله وجيسته waxay ka dhici jireen dunida gaalada dunida muslimka kama dhici jirin sida ogtihiin ingiriiska waxaad ogtihiin sanado la soo dhaafo hore nin Salman Rushdie la yiraahdo inuu nabi ilaahi Muhammad iyo quraanka ku ciyaaray buug oo qoro u bixiyay al-aayat ash-shaytaaniyya waxa ku xigsaday kii Denmark iyo kii هولندا لبضبا أدوكتهين كرتون كنبي الله محمد كسميه صلوات الله وسلامه عليه وحوي الدنك أبوه الرأي دنيا مسلم كا النبي الله محمد جاء يفله أبوه يستلقوا أفحمايه إنه صومال النقضة ووح آدي آد لو جمر بوذو آدي آد إن لقى ما رجت لقى بي أباهن ويقفك مسلم كان إنه كذا قال له أباهن ويا waxaad ogtihiin sida waxan ay dhahaan baraha bulshada ay ku xiriirto la yiraahdo lagu wada faafiyo sida Facebook-yada sida WhatsApp-ka la yiraahdo sida YouTube-yada sida video baartay telefishinada iyo wasaa'il al-i'laamka waxa la yiraahdo idin in lagu faafiyay suurad nin Soomaaliya oo leeyahay laguna tilmaamay oo waliba la barakaysanayo leeyahay wa nabi ilaahi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alayhi habibuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leeyahay ilma yar la soo ururiyay oo aanad maaragtay la habaabiyay music inta loo shido aayaadkii quraanka laftiisii lagu jeesjeeso oo la yiraahdo ya ayyuhalladina aamanu sallu alayhi wa sallimu tasliman la salaamu baraha bulshada soo dhiga u wada jeedaan wax qarsoon ma aha nin difaaci karana ma jiro waxaad ogtihiin ninka sawirka meesha lagu soo dhigay hoostiisa waxa ku qoran kelimad Swahiliya iyo magaciisa ku hoos qoran inaad aragtaan ma rajaynaya waxa ku qoran Simba wa Mungu wax la yiraahdo yaani waxa weeye libaahi Allah ayuu jeedaa asadullah oo kale ka wada hoosna waxa ku qoran Sheikh Bilow ba waxa la leeyahay والنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم عليه والله بركة سنة وحيالها ولا ليال وحكير أيو إلهي كوجا ليسيي كلمات صح النبي عليه الصلاة والسلام غزوة التبوك مركو جوجي أي نن عيدا كي كتر سنة أو كهض لي علماء قالوا منافق يدهن لكن علماء وحي إليه مؤمن بوها لأن آيدا تسينيس إنه مؤمنها لكن قالوا بي أيضا في سورة التوبة كجرت سألت كسر دكتور وحي هاي ننكاس أيام مركوس النبي عيني وحكيري ما رأيت مثل قرائنا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء كلمات كاسو بيجر ما أنا أرك تذكر القراء النبي محمد كجير عليه الصلاة والسلام القرآن كآخرنا يوم نين كعن جعل وإنه علوش بوحسد كجعل بدل ما أرك نين حق هذا الكب بدل ما أرك نين حق دجال كمرك اللي جوا كفل اللي ما بدل ما أرك كلمات كسوف هذا نين اللي عوف بن مالك سيد الروايات كتلمام أيان أيا جوجي مركز سوير منافق باتها النبي المشيرية صلوات الله وسلامه عليه رسولك وركي اللي جارسيه markuu ninkii maqlay in rasuulka la gaarsiiyay salawaatullaahi wasalaamu alayhi ayuu u tagay oo nabiga aaday markii la weydiiyay maxaa kugu qasbay oo yiri inama kunna nakhuudu wa nal'ab
وعسكت حصاوة ودنا كمريني واسك عياريني واسك دحقلني كلمات كاسوكوها مركاسة إلهي آياتها سودجي ولئن سألتهم ليقولن إنما نخوض ونلعب قل إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم مركا قفك إنه مؤمن هاي تسنيسا قد كفرتم بعد إيمانكم مركا إلهي الرميسين دبدين ما تكون كفر سنبالي واد قالوا ذي مركا عذر دارنينا meeshaan marka sawirkaas iyo haaska iyo waxa la qaadayo waxa ku jiray al-istihzaa oo Allah lagu jeesjeeso aayaadkiisa lagu jeesjeeso rasuulkana alayhi salaatu wasalaam lagu jeesjeeso ayaa aad meesha ka muuqatay waxaad ogtiin kalaamullaahi yani inta haas loo qaaday ya ayyuhalladina aamanu sallu li yiraahdo wa ilaahay iyo qur'aankii lagu jeesjeeso waa u jeesjeeso waay waxaa ku xigtay in loo garaaco wax la yiraahdo macaazif oo maarta music loo garaaco nabigeena alayhi salatu wasalaam xadiidkii imaam al-bukhari fi sahih ku sugnaa xadiidkii abu malik al-ashja'i wuxuu rasuulku yiri alayhi salatu wasalaam la yakununa min ummati qawmun yastahilluna al-hira wal-harira wal-maazif wal-khamra wal-maazif waxa imaan doono ummadaydu waxa kamid noqon doono dad xalaalaysto زينة إيه حرير ترك حلاليستو إيه خمرة حلاليستو إيه معازفته المعازف ومزامير الشيطان ميزي كذا ليراه تد حلاليستو دورا إيمان يبوي مركا استهزاء آيات إله لو جسوي نين كان صومالي إن نبي محمد لو شيغو والنبي عليه الصلاة والسلام نبي الله محمد نبي أنا حين لا شيغي وي لو شيغي كان النبي رسول كيبو أن كان بالي waxaad ogtihiin qolada hadda ahmadiyada la yiraahdo ee loo yaqaan meelo badan ahmadiya laga yiraahdo laakiin qaadiyaniya loo yaqaan magaalo qaadiyan la yiraahdo ka soo baxeen shub qaar la hadiye waa kufaar mujmac culimada dhan inay gaaleeyeen mujmac ku yihiin maxaa lagu gaaleysiiyay waxay sheegeen nabi maxamed ka dambeeyay oo la yiraahdo gulaam ahmed mirza ayay la yimaadeen nabi ka dhigay oo yiraahdeen ayadahan nabi maxamed quraanka ilaahay markuu leeyahay يأتي من بعد اسمه أحمد كان نبي محمد ما هينه وغلام أحمد ميرزا ويا بيليه سو ما جدي مركا كوا سال جالسية كوا منافقين تشيجنا كوا النبي كلمات كوا لا جالسية من كان نبي محمد ونقانه عرب إنه أها قريشي أها صلوات الله وسلامه عليه سيرة سأل نقانه ماشوا كل شيء ماشوا كل انتي أنا قانو ولا صومالي هلك جوجو وضرب صحيح كتل المامي نبي نواكنا يل برينا waxaa ku soo xigto sidii ninkii saamiri oo sameeyo kale in uu Muuse ninkii saamiri leeyahay nabi ilaahi Muuse alayhi salatu wasalaam la joogay markuu nabi ilaahi Muuse miiqaad ka aaday oo uu tagay ayaa waxa dhacday ninka inuu fa akhraj lahum ijlan jasadan lahu khuwa faqalu hada ilahukum wa ilahu Muuse hadda maxana leeyahay nabigeena waa kana odagaas halka fadhiyo sheekh bilow lagu magacaabay masawirkiisa ku yaala leeyahay nabigeena برني ما حكوا سوحجو إلا يراد هذا إلهكم وكو سوحجو إلهي إنه واكن إلا يراد مركو وحن لنا هاي وحويان يعني كلمة داس وكلمة كفر وقال لماء قفك صاحب كيسان ومرتد ويدين كانوا وكجب حياة أرنتاس مركو حال الرباء ضدك إسكاله هي أنا مخول كأوه نول بملها محكمة دين تيسع أنا قلنا موضة تعالى يعني نومتها الله دين كيسا أما حبس كيسا أما وحو متمرين تيدا أنا نومتها الله أحد الناس ومتها وحيوتها الله سلطة تتك أما الدولة دا أما مارك المسؤولين تماشكا أي أوتها الله تنفيذ كيدا يفلون تيدا أي قال قربا حديث إلهي رسول كيسا أي قد دقاق وإياك وأرنتها سنة بري قيامها إلهي وكل حساب تمايا تتك علماء وحيليهن إني عديان مسألة داس إني عديان أين قرين وحق أيدتك أشيغان marka ani waxaan leeyahay dadka gobolkaas ka soo jeeda magaalada gaalkacyo waxa laga sameeyay koonfurteeda waliba lama oranayo gaalkacyo idil koonfurta gaalkacyo waxa laga sameeyay ee jaaifada iyo aflagaadada nabi maxamed lagu sameeyay dadka dawladda iyo maamulada iyo waxa ka taliya galmudug iyo kulli waxa soo dhanba u taala annaguna maadaama dadka meeshaas loo nisbeeyay aan nala ku tiriyo
وحن لنا وحسوا كفري وقال نما ورد ما لنا هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا عليه وصحبه وسلم أجمعين. شيخ كلمة يجوه الرئي جزاه الله خيرا يعلم ذي كهر سبا موضوع وكهالله وقصاب سن منك اللي يرادو عبد الولي شيخ عالي علمي يرى وكسر شيء الدجان كالكعيو جارهان لنعك وفرطة منك إسقاء سيد علم ذي يجوه الرئيس شيخ قدام بيجي أي كهالين وحو كهالله ووح تاريخ ذا مسلمين تكعصم نبينا ونشج صلى الله عليه وآله وسلم دجالين كذابين إن يصبح دونان والنبي ما شجعن دونه لكن تاريخ ذا المسلمين تلقوما هيو منذ بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم طف أورانا يا نبي الله محمد وقف كان نبي أنتو مركو دنتي سيدا نقصون هي تاريخ ذا يعني وحوي مسلمة الكذاب تضبطن باصوب بحي والنبي ما شجعتي إلى يوم القيامة وأشرد دون ضد نبينا شجعنا لكن تاريخ المصر مرين إن قف بني آدم أول يقانو عدة أول شيء الجنسية وياهي إن اللي يراه النبي النواب سومالي ده واحد يكون مهما هذا نعسكو هدو وحوي مركور وش اتصال بود إفتح هدي ودرين وين أسأل الله بيكسدا أرنت أيضا وكذا على كفرت كالكعيو وإهانة عظيمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أرنت وكه لنا والنبي يقول المامي نينك أفريكان كه الصومالي وكفر السريع حسد علماء يجوا الرئيسي أي شيئين الدلالة كسر رتنا آديات بفربضنت الدلالة الشرعية قاسنا نقصونها هي الدلالة معصومة وصدق قيبوض كتابك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجمع علماء أهل السنة صدق قيبوض با وحيكون كل من قفك النبي كتشيس تشيسه أما إلهي آيات يسكت سياسة أما وحويان الله سبحانه وتعالى وحن لايقه كشيغا قفكاس كافر بالله العظيم وياي نينكاسنا وحويان ومرتد يعني وحو إسلام ككبحي الله سبحانه وتعالى كتاب القرآن وحقورنا إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد له عذابا عظيما كوا إلهي يا رسول كيسي لبيا إلهي الدنيا آخرة وكل عيني لعنتي أيا كل عضي الدنيا آخرة إلهينا عذاب دلية أيو حويان الدياري مركا وحويان إلهي ولا كل مو آيات كسر وحكم ذا نبي الله سبحانه وتعالى وحوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم يعني ضدك مسلمين تأثر تقل ما قف إلهي الرسول كيسي عراد وقاضي أما أفلقادين يسود ويان واجب وحواه قفك مسلم كضمير كيسو النوليهي مركا النبي لا أفلقاديو أما لا أفلقاديو كتابك أما إلهي لا أفلقاديو أرنتا إنه موقف أدق وكيستاغو لأنه وحويان هدي أرنتا أصن سمين سيدا آيات وصريحة يكتهي قفك إيمان ملك قفك إستاغ إيمان ملك النبي وقت يسي صلى الله عليه وآله وسلم نليها كعب بن أشرف أي النبي أفلقاديو النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا وحي قصوا قبنا يا بينك ليها كعب بن أشرف فإنه آذى الله ورسوله إلهي رسول كيس أيوه وحوي دباته وجيسته وأولى لعيي أرنتا وحوي استاجي محمد بن مسلمة الأنصاري وحوي توسوي استاجي أيو دلي ومعروف وقصة معروفة ثابتة في الصحيحين وغيرهما كذلك سيدا سلك واحد بعد وقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث كلته الصحيحة ومحويان لجوري وصورنا يا أبو داود النسائبة إن الصحابة كملوا إن دولاء أيا وحوي حاس كيس أيا مركز النبي في الجادين شرتي مركز توكوانين شري هبين كده بيعطوا مركز يشوفين دي أي النبي أكتسبوا عيدي سيف كسبوا لا عسكري النبي قال أنت بقى الله صار شيء النبي يقول مجلس كي الصحابة يدخلوا يوياري وحنيك أركا سميه سوي استاغ وسوي استاغ صو حويان وحوي إضراب السماينا ما دام وسحوا تشيدين waxa lagu sameyn doono nabigu mowqif ka istaagi doona ma uusan garanaynin maxaa ku kalifay gabadha dishay wuxuu labada aynan oo aad iyo aad u quruxda badan ayay dhash aad iyo aad bayna igu roonay ha ahaatee waxa weeyaan aflagaadada ay ku aflagaadeynayso ayaa in badan soo socotay xalay baan u dambeysay markii ay aflagaadadii ka soo baxdeen waan dilay
nebigu sala allahu calayh wasallam dhiiggeeda hadur buu ka dhigay yacni waxaan wax ka soo qaad lahayn buu ka dhigay nebiguna wuxuu yidhi sala allahu calayhi waali wasalam man badala diinahu faqtuluuh ninka waa kaafir billahi alcadiim bilkitaabi waalsunnati waalijmaac qofka waxa way u danaanaya oo garab istaaga oo arrintaa ka raali noqdana asaguna waa kaafir billahi alcadiim ninka garab istaaga oo kufriga ku garab istaaga kaa'inan man kaan ama qaraaba ha noqdeen ama ha ka shisheeyo ama saaxiib ha la ahaado waa gaal ilaahay ku gaaloobo wey lianna nabigeenna sala allahu calayhi waalihi wasalam abtiriskiisa waa la yaqaanaa reerku ka dhashay baa la garanayaa meeshuu ku dhashay baa la garanaya halku ku dhintay baa la garanaya 23 sano nabiyullaahi muxamed magaciisa waxaa la yidhaha muxamed ibn cabdillahi ibn cabdilmutalib hooyadiis waa amina bintu wahb waa qurashi hooyadiisna waa quraysh oday afrikaan ah inta bannaanka naloo soo dhigay in la yidhaahdo waa nebigiinii macnaheedu waxa weeyaan qur-aankii waxaa lagu soo dejiyey ninka afrikaanka soomaaliga ah ninka hadalkaa ku hadlay waa khaa'in kaafir billaah weliba waxa weeye dembiga uu galay maahan kufri caadi ah qofku markuu gaaloobo waa uu toobad keeni karaa ilaahay baa usoo toobad keeni karaa toobadiisana waa maqbuulo laakiin qofka saabiga ah ee nebiga caaya xataa haddii uu toobad keeno oo ilaahay u soo noqdo toobadiisa waa la aqbalaya laakiin xaqii nebiga uu ka galay waa xaq aan joogsanin wey nebigu hadduu noolaan lahaa maanta aan waa cafin lahan waa dili lahay laakiin muslimiinta waxaa waajib ku ah qofka nebiga caayay inuusan dunida guudkeeda ku noolaan taariikhda ama axaadiista saxiixadana waxay sheegtaa oo macruuf ah nin hadda ka hor nebiga caayay baa jiray waa la aas bannaanka dhulkiiba subax loo imanaysa oo bannaanka yaalla gaal buu ahaa waa lagu celinaya war xalaa la soo qof waa bannaanku soo dhacay markii dambe waxaa la ogaaday nebiga inuu caayi jiray mid kale tana waa ina xusuusinaya qofka nebiga caaya ama gaal ha noqdo ama muslim ha noqdo adduunka ayaa ilaahay dulliga ku tusinayaa waqtigii muslimiintu ay awoodda lahaayeen oo jihaadka islaamiga oo sharciga uu jiray muslimiinta markii dhufaysu ku adkaado oo magaalo gaaladu ay haystaan la qabsan kari waayo waxay samayn jireen go'doon bay ku samayn jireen dhufayska isaga ah waxay dhagaysan jireen bal inay gaaladaasu nebiga caayaan iyo in kaleeto maalinta ay maqlaan nebiga oo la caayayo yastabshiruuna bih caydaa nebiga la caayo waxa weeyaan muslimiintu way ku istibshaarsan jireen maxay tahay sababtu ma aha nebiga inay jecel yihiin in la caayo laakiin waxay calaa yaqiinin agtooda waxaa ka ah ciidankaas inuu jabi doono marka maxaad u malaynaysaa ummadda islaam sheeganaysa oo islaamku abtirsanaysa oo la yidhi ninka afrikaanka aha qur-aanka lagu soo dejiyey asagaa saxaabada rasuulka nebiga u ah annaka nebi nooma ahan wuxuu nebi u yahay ninka rumaystay iyo ninka ku hadlay waajibna waxa ah dadka mas-uuliyiinta ah oo arrintaa waxa weeyaan ay hoos timaado inay xadka islaamka ay ka fuliyaan hadday ka fulin waayeen dan amaam allahi ayagaa ilahay kula xisaabtamayaa annaka waajibkeena waxa weya inaanu caddayno isku qabiil maahin isku waxa weeyaan nama sheegto mana sheegano ninkii waxa weye noogu abtiriya oo yidhahda reer beni fulan baa waxaa ka soo baxeena waxa weeyaan waa ninaan ilahay ka xishoon weeye hada wabillahi tawfiiq wasala allahu daan iyo jinni baa u warramaa shayaadiin baa la shaqaysata shayaadiintii waxay u sheegeen in shiikhulsi nebi maxamed yahay sala allahu calayhi wasalam inuu yahay ayay u sheegeen ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala waylun likulli affaakin afiim cadaab iyo hoogi halaag waxaa leh mid kastoo beenaala ee been uumasho badan ee ifki sameeya ee dembiilaah waxaase yaab leh oo aada loola yaabay dadka ka rumaystay ninkaa nin gaaloobay oo diintii ka baxay oo nebi maxamed calayhi sala allahu calayhi wasalam iyo dadka ka rumaysanahaya waxaan aada ula sii yaabay waxa maanta ka dhacay gaalkacyo oo la raba ninkii in la yidhaahdo waxaas ma samaynin gurigiisa la isku yimid odayaal qaar ka mida la keenay wadaad difaacahaya gurigiisa dhexdiisii la keenay nin la leeyahay waa qaali waa baarnay ninkaanoo waa dhagaysanay oo waxba kama jiraan waaba duuban tahaye isagaa la hadlahaye xertii baa ku sallinaysa oo bilow muxuu ahaa sheekh bilow muxuu ahaa sheekh bilow oda afrikaan oo jooga islii jooga oo lagu sallinayo baa meeshii taaganba ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala walaa takun lilkhaa'iniina khasiima khaa'iniinta ha difaacin adugu ha u doodin ha difaacin maxaad u difaacaysaa nin khaa'ina oo gaaloobay oo rasuulka calayhi sala allahu calayhi wasalama waxay in la soo qabto ee laiskugu tago maxkamad la saaro sida waajibka oo saas amaalkiisa la mariyo laakiin in la difaaco oo maxaa lagu difaacaya waa reebel maa ku difaacaysa oba gaale mid ogaada qofka soomaaliga soomaalinimadu 3 shardi bay leedahay
شرط أما صدح ركن من هذا صدح يا قف اللي هو الصومالي معه مسلم وشرط قف مسلم وين الصومالي معه رهبل معه لبا قبيل كابوعية مركو مسلم نقول رهبل وأبترسي صدح الصومالي صدح ناس وأركان قف الصومالي محاكو أمريكا وحا مسلم لماذا صومالي مسلم أسود المال هذا نكي قالوا بي سعدنا معها صومالينا معها شيطان لكرنا بالهوستر ما قالناش أو الملك يمد الله كون أو عرك لقى صوتوري أو كل صول لي أو شيطان وحوش شاقي أو شيطان وحي ودي بري ما كنا هاي قبيل هالشغلكم مليين طول هالشغلكم مليين ديان هالشغلكم مليين علماء بري ما كنا هاي نكا الصومالية إلا السوق قبطو قعنها لسكوك جيو أو نكا السوق قبطو أو محكمة الله كيرو أو الله حكمه أو أبالك السلام مريو سيقول شيء نكا سوا قالوا بي حكم سوا الدل لكن محكمة الله حكومة محكمة الله صارية وعليه يكون الدفاع هي قبر بأليدهم قيامة أليدهم نكا الشيطان هو وحيودي وحتى ما انت لها أنا علم بعض كان قالنا حقيقة قارن علم بعض علم الظاهر من موجة شيطان بقوة حيودي نكا نوعاسي يا للدفاع قفي عن أو حق تاجم للدفاع أما أن بعض الكسر يا للدفاع وعن ليه ولا لها مسلمين تاع الصوماليين سدع الماء أي شيئين وليين ما نم قني محمد صلى الله عليه وسلم الصومال تحدث أو سألوا قفاية عيبا يكون تاي دجانك قال كعي كفرت قال مذو عيبا يكون تاي إنه صبحه نيني محمد صلى الله عليه وسلم عيبين هي رأس مالك ومضو ودينك الله سبحانه وتعالى جل جلاله ثم نبي محمد صلى الله عليه وسلم وصدره يدين رأس مالك إن دفاعنا واجب نوا ونك على سوقته أو لما حكم ذيه إلى وحكم بريء سبحانه وتعالى ذلك الجهل هو هيو متك السوق قيلية اسكروا ما يسنى هي إلى هنومي هذا توبت كنا نين كان بري هاللجان نقضه ودين هاللجان يستاجو هاللي صار عفيه وحرجينا هي هذين نك على سوقته أو قال هاللجان سوقته أو لما حكم ذيه الرب رمي بدي يدور رب بدي يدور وخير هل دونا وبركول دونا لكن أيك على حيسي وأول ما يهبنا بيوحي كوزي درس ذنب النبي عليه صلى الله عليه وسلم حجر رب كواركيسا حاجات غير كواركيسا حاجات حكي إنسان بلا يا بك بلا وحنا حاجات كواركيسا ورنك أسواق مدرب بين يداهي ومحكمتك كانوا وبركول إنسان هذا هو ما سيدي جزاكم الله خيرا. لو اللي يراهدو مقعيسى محمد يو حسين عبد بالي يراهدا كان يكونوا ليهاي نيروبي وجوغا مين ستريت بوجوغا dadka yaqaana oo aqoonta u leh oo anigu shakhsiyan aan waraystay waa nin iska daroogaysan shaadka iyo sigaarka ay u dheertaa baashaan la dhuuqo oo xashiishada ah oo waxa weeyaan xashiishadan la dhuuqo ayaa u dheer tahay dumarka waxa weeyaan yiraahdo waa ummahatul muuminiin ee waxba u kala soconayn qofka ahadka noocaas oo saaxirka ah ayuu Cabdiweli Shiical cilmi ragaal kacyo wakiil uga yahay Cabdiwelina fisqiga iyo xumaanta kama bilaabin maanta uu ku hadlayo qadiyadan ee waxa ka horeeyay jaadka iyo sigaarka aan cunayno rasuulkii nooga yeelay fisqi nooga yeelow ee sa ay ku jirto ayuu qaadi jiray meesha uu ku magacaabay baytu rasuulna laguma tukado asaguna ma tukado sida dadkii la joogay oo yaqaan noo sheegay jaadka iyo sigaarkaas baa meesha yaala barkad baa ku taala biyo ku jiraan dadka loo qaado liya waa tahliil waa cabaysaan oo waxa weeye dadka lagu sixrahayo waxaan soo naajaadka uga yimaada Nairobi oo asaga iyo xirtiisu meesha ku cunaan waa firi lacag laga qaado kadalika asbuuci hal mar oo kamid ah ayaa waxa laga keenaa Nairobi biyo leeyahay waa tahliil Sheikh Bilo waa soo dhiibay oo waxa weeye Nairobi ka soo dhiibay barkadaas lagu shubaa dadka ayaa la yiraahdaa cabba jaadka marka la cunaayana biyaha la dhex galiya dadka asaga la jooga oo uu duufsaday qaar kamid ah markii laga weydiiyay jaadkan darooganimadiisa waxay yiraahdeen jaadku waa ka fiican yahay geedaha kale oo dhan maxaa yeelay wuxuu ku baxaa ismullaahi al-a'zam ayuu jaadku ku baxaa sida culimada noo sheegay wuxuu soo maray Cabdiweli Shiical cilmi yara xilli laga joogo 2 sano ka hor taqriiban
وأنا أن دجاهيجا كود دجايستي أصغوا عاية هي أنبياء إلهي نبي الله موسى أيو أرنا هي علم ظاهر ويقانا علم ظاهر كان واكل عيبوبي وهذا كفر صريح قال لي ماذا صاوفنا meeshaasi marka waxa weeyaan darooga xagga laga keenay iyo darooga meesha taala waa sun lagu daray qofka muslimka ah waxa qariib ah dad inuu haysto rumaystay inuu yahay weli soo daahiray asab markii dambe oo kartoonkan sawirka uu keenay oo uu yiri waa nabiyullaahi maxamed uu yirina ay dadkii atbaacdiisa ahaa ay rumaysteen heerkaas ayaa jahliga iyo kufriga u gaan munkarkana haddaan laga hortagin oo aan laga digin oo aan laga hadlin munkar kale ayuu dhalaa sidaasaa waadixa munkarkaasi midba mid buu dhalaya shaydaanku markuu ogaado midaan inay martay oo hirgashay mid kale mid saddexaad buu ku celinaya waxaan sida culummadu ay kusoo gebagabeeyeen aniguna u dirayaa nidaa oo u jeedinayaa reer galmudug gaar ahaan gaalkacayo dadka degan oo beelaha halkaas degan ka mid ah oo ninkaan uu ka dhashay oo aan ka soo wada jeedno ilaahay ka cabsada haddii qabiil aad u dhaqnan jirteen maanta nabiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam difaaciisa u dhaqnada hantidiina ku bixiya codkiina ku bixiya midka asaga difaaca haya oo qiilka u raadinaya asaga waxba isma dooriya ay ahlu cilmigu ka hadlaa nebiga nuqsaan yar qofka u geystaa waa gaal gaalnimadiisuna waa kufri diintu uga baxahayo wey meeshaas abaarta ka jirta ee dhibaatada ka jirta awal waxay ahayd qatli iyo dil iyo macaasidaasay joogtay hadda waxay joogtaa nabiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam in sawir kartoon ku jira la inkaga dhigo mana ka saaraysa hadduu yidhaahdo kama wadina sheikaygii baan ka wada ka saari mayso oo waxa asagu afkiisa uu ka yidhi oo uu qirsanaa oo uu ku hadlay oo musajilka ah oo cid bedelaysaa aynan jirin baa iqraar iyo daliil ugu filan waxaan u dirahayaa fariin gaar ah culummada deegaanka ka soo jeeda nuucyadooda kala duwan inay ilaahay ka cabsadaan oo ummadooda wax u haray ma lehe la badbaadiyo oo tawxiidka dib loogu sharxo oo dadka tawxiidka iyo caqiidada la baro oo laga badbaadiyo kufriga sariixa ah sababna ay ugu noqdaan inay ummaddu ilaahay ku xirmaan subxaanahu wa tacaala waxaan leeyahay maamulada arrintaa iyada ah u istaaga inaad wax ka qabataan oo wax la taaban kara aad ka qabataan haddaynan maanta taas difaacin oo aynan wax ka qabanin maxaad ummad u haysaana u difaacaysa culummadii iga horreysayna jazaahum allahu khayran sala allahuma calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wa saxbihi ajmaciin